iskaashatada tigaha horseed ee magaalada Burco ayaa maanta si rasmi ugu biiray xisbiga mucaaradka wadani isla markaasna waxay iskaashatadani ka soo digarogteen xisbiga talada haya kulmiye gaadiidka tigaha horseed ee ku biiray xisbiga wadani ayaa waxay socod dheer ku soo mareen qaar ka tirsan wadooyinka waaweyn ee dhexmara gudaha magaalada iyagoo sita astaanta xisbiga wadani gabagabadii waxay tigahani isugu soo biirshubteen xarunta xisbiga wadani ee magaalada Burco waxaana halkaasi ugu horeyntiiba ka hadlay gudoomiyaha iskaashatada horseed ee magaalada Burco Cabdixakiin Yuusuf Ismaaciil iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta iskaashatada tiga ee horseed waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan gudoomiyaha iskaashatada horseed Cabdixakiin Yuusuf Ismaaciil magacaan ku bilaabay 26 bisha labaad 2016 waxaan ku soo biirnay xisbiga wadani anagoo ka soo digargonay xisbiga kulmiye ee talada haya oo iskaashatada gaadiidkayga cadaadin dheeraad ah ku aragnay oo maamulka gobolka ugu fashilmay inuu la kala xadeeyo oo nala caburin oo nala xidhay anagoo dad masaakiin gaadiidkooda ku xoogsadaan oo muwaadiniina oo magaaladoodii dalkooda ka xoogsadaan masaakiina oo mar walba meel kasta lagu haysto oo mar leeystaanadii ka guuray oo mar tagaasin leey waa la idin keenaya oo mar bacdaasna lagu hayo xisbiga wadani ee isbedel doonka ayaanu anagu ku biirnay oo talada ku shubanay soo dhaweynay iyaguna way soo dhaweeyay kuma biir xisbigaas oo imika xisbiyada jira ka soo muuqda kana iftiinka xisbiyada sida marka la eego oo nin muwaadin oo wax garada oo nin weyn oo macquul loo arko uu talada u hayo oo gudoomiye u yahay oo aan u codeynana markii doorashada gaadhan hadii ay karo Xuseen Cabdi Cali karamida iskaashatada tigaha horseed ee bariga Burco maanta way taariikhdu tahay 26 bishii labaad waxaan u soo digarroganay xisbiga wadani annagoo ka soo digarroganay xisbiga talada haya kulmiye markii aanu aragnay xisbigii talada hayay ee wadanka xukumayay ee aanu dooranay ee aanu dhalinyarta u ahayn ee aanu ku soo codaynay ee aanu heer gaadhsiinay halkii aanu ka eegay dhalinyarada iyo gaadiidleyda iyo dadka danyarta ee gaadiidleyda inuu wuxuu qabto waxaanu ka aragnay cadaadis fara badan oo gaadiidkayga kaga yimi in la noo yeedhay oo annagoo muwaadiniin inta la noo yeedhan leeyay gaadiidkiina soo xireeya iyadoo aanan wax dambiye gelin waanu soo xiraynay waxaanu gar u aragnana looma sheegin waxa la istaanadiina ka guuray istaanada ka sharci baan u lahaynaa walba dawladana siisay waxaanu kaga guuraa waxa la wada naga qaadin wax la guuray hadii kale fulid baa idinku soo sameynaya waxaanu u aragnay oo aanu maanta dan moodnay inuu xisbiga wadani yahay xisbiga cadaaladda ee talada waxaan ka hadlayaa shucuurta imka halkaan isugu nimi anagoo iskaashatada tigaha horseed ee gobolka Togdheer ee dhinaca bari waxaan ku soo biirnay xisbiga wadani waxaan ku soo biirnayna cidda aan markii weynay waayo xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye hore uga tirsanayn in badan aan ku tirsanayn aan dhowr iyo 10 doorasho soo codaynay ilaa iyo bariga mucaaradka ilaa imika marka aan soo codaynay imika marka waxaan u badan gaadiidleyda dadweynaha loo yaqaan bajaajta marka gaadiidleyda bajaaj hay'adaha aan gudanay mar walba wana la qabsan marka saddex xisbi qaran oo jiraan xisbiga u cid kulmiye wadani dadana waxaan ku dooranay ciidan codkayga maanta ku helin lahayn aan dooran lahayn marka waxaan noqday xisbiga wadani maanta taagan xafiiskan gobolka Togdheer ee magaalada Burco xisbiga wadani waxa aanu soo dhaweyn kalgacal leh oo ballaaran oo qiimo leh aanu ku siinayna oo ku soo dhaweynayna iskaashatada horseed tigaha Burco siba wali iyo fasta sida daraaddeed waqtiisa markay tahay waxa weeyaan haddii aan la yiraahdo waxa weeye aad iyo aad ayay horta ugu mahadsan yihiin gacmo furan iyo qalbi furan iyo waji furan baan ku soo dhaweynaynaa taageerayaasha cusub ee lagu soo biiray ku soo biiray xisbiga wadani soo dhawaada horeysata iskaashatada gaari bajaajka ee horseed bariga Burco anigoo aad iyo aad maanta u faraxsan waxaan leeyahay ilmaade rayaal eedooyin soo dhawaada
waxaan jecelahay inaan laba qodob oo kaliya aan ka hadlo marka koobaad waxaan idin leeyahay xisbiga wadani waa xisbi u taagan da'yarka iyo danaha bulshada Soomaaliland inuu horumar gaarsiiyo loona siman yahay ma aha guri waraabe nin galay waxaan idin leeyahay waa xisbi qaran oo Soomaaliland dara mar labaad soo dhawaad waxaan raacinayaa hal eray waxaan leeyahay xisbiga kulmiye ama xukuumadda talada dalka haysa dadkan baabuurta yar yar wata ha noqdo gaari bajaajka ama ha noqdo gaarigan yar ee maxaan dhahdaa taksiga ah waxa weeyaan dad shaqo la'aantu markii ay dalka ku baahday ee camal la'aantu ardaydii jaamacadaha iyo secondaryada dhamaysay ay ka badatay ee hooyada baroorteedii iyo guuldaradii Soomaaliland curdinkeedii iyo tiirdhaxaadkeedii uu ku tiro batay ee daayirtoodii uu bacaad ku cunay waa waxa kaliya ee loo hindisay ee waalidiinta kala qayb qaatay in hilibka caruurtooda haadu aanay cunin ama ay murugada iyo qunyar socodka ay iska dhaqaaqayaan ay kaga baaqsadaan waxaan leeyahay dadka noocaasa ee naftooda lagu badbaadinayo miyaanay xaraan ahayn inaad idinku barakicisaan oo aad ku kaliftaan inay tahriibaan waxaan leeyahay waa xaraan xisbiga kulmiye waxaan leeyahay da'yarta maanta taagani ee gaari bajaajka wadata iyo kuwa badahu cunayba waa kuwii aad 100% codka ku hesheen aad ku faa'iideen inaad tidhaahdaan dhulka meel kuma lihidin ee cirka ka rakaabsada waxaan leeyahay wax u cuntama maaha xaraan bay ku tahay waxaan leeyahay maamulka golaha deegaanka iyo maamulka gobolka ilaahay ka baqa oo ka daaya barakicinta iyo dhibaatada aad dadka ku haysaan waxay u shaqeeyaan caruura agooma waxay u shaqeeyaan naftooda waxay u shaqeeyaan maato waxay hooyooyin baa iyaga ku joojiyay oo tahriibta kaga baajiyay inaad idinku barakicisaan oo khasaare u soo jiidaan oo dalka hunga tirtaan waa xaraan baan leeyahay arrinta aad baan u xaqaaraynaa ma aha xarago waxa keenay gaari bajaaj iyadoo ay og yihiin inay kulmiye ku dhasheen oo ku hana qaadeen intooda badan maanta ay hortaagan oo dhowr iyo 10 sanadood ay kulmiye u shaqeynayeen ma aha xarago waxay u yimaadeen wadani waa dareenkoodu markii ay arkeen dhibaatada taagan iyo inaanu ahayn xisbigani mid dan u ah bulshadan maanta joogta Burco iyo kuwa dalka intiisa kala joogaba markay arkeen gabi ahaanba sida isu siiyeen kulmiye bulshada barigu inaanay run ahayn waxay go'aansadeen inay axsaabta qaranka meel ka doontaan